السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصاحبكين عبد الرزاق كل انتم عن وناكس ملك استأجوبتان أصحابي ما انتو حاربا إنان كهالو أما عن برنامج شر أو كسابسن سيدا واتساب كفونتس كاللوغو بدل لها سيدا الله سعنا قفل بوانا غنغن ميله انتان أبدا وحان استعمالنا واتساب مركا inkastoo videoga oonan dheereen oo iska gaaban yahay waxaan jeclahay bal aan wax yar ka aragno qaabka fontiska whatsappka markaad qof inaad la chatting gareyso aad rabto oo kale qaabka fontiska aad u bedeli lahayd saad la socotaan fontiska waxa waa qaybo badan ay leeyihiin sida bold, italic, underline. marka maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno fontiskaas inaan ka hadalno insha Allah arabna marka contentskaada aad joogtid oo kaleeto ama aad u baahan tahay qof inaad la hadashid marka waxaan rabaa qaabkaad u bedeli lahayd sidaan la socono hadda salaam waxaan qorayaa assalaamu calaykum tahada waa sida caadiga ah qoraalka caadiga markaad qof qorto kale sidoo u muuqanayo u muuqata saad u jeedaan marka waxaan rabaa inaan ka dhigo black iyadoo madow si una qata marka haddaan qoraynaa assalaamu calaykum marka ugu horeynta waa hore inaad ugu dartaa qaybta hore xidig qaybta dambana waa inaad ugu dartaa xidig saad u jeedaan qoraalka waa uu isbedelay wuxuu noqday black waa jidda isku mid maahan way kala duwan tahay sidoo kale waxaan rabaa inaan ka dhigno haddana italic inaan ka dhigno farta jijiiftoo kale inaan ka dhignaa rabnaa iyadana waxaad u baahan tahay waxaan qoraynaa assalaamu calaykum qaybta hore aad waxaad ka raacinaysaa calaamadaas yarta ah oo minuska aad hor iyo gadaal aad ka raacinaysaa markaad ka raaciso waad u jeedaa isla markii waxay isku bedeshay italic asxaabay kaliya waxaa noo dhiman hal qayb oo ah sida aan dhaxda xariiqan ugu marin lahayn sida shay la qaldo kaleeto tusaalaha markaad rabto shay qof inaad ugu sharaxdo shaygaas inuu qaldan yahay qaabkaad suubin lahayd oo kaleeto tusaalaha waxaan qoraynaa hadalkaasi waan ku qaldamay oo kaleeto marka saas u qoran tahay marka waxaan sameynaynaa qaybta hore aan waxaan ku qoraynaa calaamadaas aad u jeedaan sidoo kale qaybta dambana saasaan ku qoraynaa marka waad u jeedaan qoraalka siduu isku bedelay asxaabey intaasaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu